Soomaaliya ujeedada maxkamadeed maanta taariikhdu ay tahay 12 bishii shanaad 2019 maxkamadda darajada koowaad gobolka Nugaal Garowe waxay u fariisatay xukunna ka soo saartay dacwadii qaabka ahayd oo loo haystay 10 nin oo ay ka mid yihiin Abdifataax Cabdiraxmaan Warsame Abdishakuur Maxamed Degel Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame ilaa lambarka 10 maxkamaddu markay dhageysatay eedda xeer ilaalinta oo ah nimankaasu inay ku eedeeyeen caasho marxuumad caasho Ilyaas Aadan nimankaasu inay afduubeen kufsadeen si wadareed ah dileen sumcadri Puntland iyo shacabkeeda ku sameeyeen amnigeeda khalkhal geliyeen markay xeeraalintiisa kusoo gudisay maxkamaddu markay dhageysatay eedeysanayaasha oo ku jawaabay inaysan gelin maxkamaddu markay dhageysatay qareennada maxkamaddu markay dhageysatay dhegeysiga koowaad iyo dhegeysiga labaad iyo dhegeysigii saddexaad oo hadda gabagabadiina uu ku soo gabagabeeyey xeer ilaaliyaha guud xigeenkiisa Maxamed Xareen taarigii dacwada koowaad uu kaga dhigay 3 eedeysane oo kala ah Abdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Abdishakuur Maxamed Degel iyo Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame saddexdaa uu yidhi uu keenay dhacaankii laga qaaday iyo xiddiyihii gabadha dhacaankeedii iyo xiddiyaheedii iyo iyaga dhacaanadoodii oo la soo baaray Nairobi lagu soo baaray caddaymihii maxkamadda uu hor keenay oo muujinaya inay isla falgaleen toddobada kale laakiin uusan keenin eeddiisana uu ku ururiyey maadaana wax caddayna u hayn in la dhaariyo maxkamadduna ay dhaarisay maxkamaddu waxay amraysaa lambarka 4 ilaa lambarka 10 xorriyaddooda in loo sii daayo sida ugu dhaqsaha badan saddexda kale oo uu ku soo gabagabeeyey maadaa ay caddayntaasu muujinayso inay nimankaasu gabadha nimankii kufsaday dilay qafaashay dhibkaa u geystay ay yihiin markaanu qoraallada akhrinayna ay saa muujinayso inay yihiin saddexdaasu nimanka marna aan laga saari karin ee sameeyey dhibtaa ee caasho ku sameeyey inay yihiin maada ciddiyihii iyo taabashadii waxa la yidhaahdo dhacaankii laga helay xukunkii maxkamaddu waxay ku xukuntay saddexdaa eedaysane oo ah Abdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Abdishakuur Maxamed Degel iyo Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame dil toogasha oo dawladdu ay ku samaynayso dilkaas ay u xilsaarantay iyo dil fuliso bilaa tawfiiq fariista marka waxaan la socodsiinayaa dadka ma garanaysaa cusbiga waa la socodsiinaya waxaa loo cuskaday qaraa'in cad qaraa'in marka la yidhaahdo yuraadu bilqaraa'in الأمارات يراد بالقرائن الأمارات والعلامات التي يستدل بها على وجود شيء أو نفيه كما لو شوهد شخص يخرج من دار مذعورا وبيده سكين ملضخة بالدماء وعند دخول الناس دار وجدوا شخصا مذبوحا فيستدلون بما رأوه من حال الشخص الخارج من الدار على أنه هو القاتل الذي باشر القتل بنفسه مع أنهم لم يشاهدوا ذلك أو يوجد المتاع المسروق في بيت شخص فيستدل بذلك على أن هذا الشخص هو سارق أو أن السارق أودعه إياه
أو أن صاحب البيت اشتراه من السارق. انت مركان كسو بحنو من السنة قرائنتا وحالي فهل تعتبر القرائن طريقا من طريق القضاء ووسيلة من وسائل النفي والإثبات عند صدور الأحكام بحيث يصح للقاضي أن يأخذ بها ويجعلها مستندا لحكمه؟ نعم، أن شرع الإسلام اعتبر القرائن ولم يهدرها. ما ترتريو قرائن الشرع إسلامك وحكدغيا وحلا قبسن كره oo mas'alada daliil looga dhigi karo. waxaana u daliila waqad dalla ala i'tibaar al-qara'in al-kitab was-sunnah wa aqwal as-salaf as-salih min fuqaha wa qudat. awalan adillatu al-Quran al-Karim ala i'tibar al-qara'in wa ja'u ala qamisi bidamin kadib qala bal sawarat lakum anfusukum. markay shaarka keeneen xaqiiqada Ilaahay waa ka waramay ديك بينه بوين أبهودنا وحيي يعقوب بل سولت لكم أنفسكم مركا سووا هالكا موجي إن افتاض وحكا نقول حسي وحجرة وسنهين وحي علماء وأجمعوا على أن يعقوب عليه السلام استدل على كذبهم بما رآه من سلامة القميص وعدم تمزقه وحو هالكاس أدلي شيء إنيسان حقيقة سوى فقسن شيئين markuu arkay shaatigii inuu nabad galay oo wax jeexjeexa uusan lahayn xataa ruuyanahu qaala lahum ila laga sheegay inuu iyagu ku yiri maanayaalow mataa kaanadii wa hakiman yaakulu yusuf wala yakhul khamis usagina waa cunay maganaysa maradiina ma jeexjeexin. marka waxay ku tusaysaa qaraa'inta rismiga ah. markaan hadda soo qaadno oo sii wadno sida maganaysaan هذا واحد اللي يراهده أبيقانك أو علامة نبيه عليه الصلاة والسلام واسوي. ومن السنة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما بقول القافة وحكمي نكي سنجيقانك أما أبيقانك أها مركو يلقفك نقفك أسوي سوقي هو علي سدا سوق حكمي وحكم ذا من قضية ثالثا من قضية الصحابة رضي الله تعالى عنهم حكم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دون نكير من حد بإقامة الزنا. عند كجهرت من مجلسه نبي عليه السلام وحير الحق مع عمر والله قرنيا على امرأة ظهر حملها ولا زوج لها هوين أور له وأن لها بوحدك كعوبي على قرينة ظاهرته أور خاص بانه موجي إني سنيستي. وحكى له جرى أيضا عمر بن مسعود رضي الله تعالى عنهما بوجوب الحد بالرائحة الخمر. خمر ما كان يساوي كصوري في فم الرجل من أفكي أو قي خمرا على القرينة ظاهرتي ويقع عسكري قرينة ظاهرك سدا وحنا نسعد سنينا قرينة داس تضرب كبرية شيء oo saddexda la soo baxday xeerantu keenay inay maxkamadu u aragtay wax xaq waafaqsan inay tahay oo xukunka u cuskatay. waxa weeye waxa la yiraahdaa bayino likulli ma yubayinu alhaq wa yadhharuhu. ma aha markhaanti iyo dhaar iyo qiraal kaliya bayinadu ma aha. waa la socodsiinayna dadka qofkii aan ma garanaysaa. fal bayinatu qad takunu shahadatan maqbula aw takunu nakuran aw takunu shahid alhal. xaalada meesha taal qiimeynteeda iyo nukuulka qofku waxay noqonayaan iyaguna bayinay noqonayaan. fa inna min ash-shuhud min al-bayina wal qarinatu min al-bayina markhaantiga iyo qariinadu bayinaadkay kamid yihiin cad. وقد تكون القرينة في بعض المواضع أقوى دلالة في صدق المدعي في دعواه من دلالة الشاهدين. مرارك قيبتوت قرينة ويكحوك بدن تهي شاهدات أنك وركض. وكان أيضا فقهاء أخذ الفقهاء بالقرينة واعتبروها وسيلة من وسائل إثبات وطريقا من طرق الحكم. فقهاء ويقاتين وحين
halkaa ku macneeyeen oo u qaateen oo u ictibaareen wasiilo waxaa lagu gaaro inay tahay waxa sugnaada oo xukunka lagu gaaro sidaas marka baanu idinla socodsiinaynaa xukunkana waa ku qoraynaa maxkamadduna saasay ku xiran tahay wabilaahi tawfiiq